بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا إذا شئت سهلا. إله سبحانه وتعالى سقى فضودين كلا وحكستها فضودية ولا لها الصوماليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلة ولاشين أما ما مديني صحان صحب يوران هالتي channel إلهي هيدون وضا بركايو ما أنت إن شاء الله وحان ربا إن شاء الله إنان هوليداي بان سوق اللي إنا مارتو hooyooyinka iyo qof walbaba inuu holiday-ga sidoo isugu diyaarin lahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha inoo fududeeyo oo maaragtay yaani barwaaqiyo bashbash iyo fudeed iyo hawl yare Allah ha inoogu dhameeyo especially hooyooyinka Ilaahay ha la heshiisiyo holiday-ga caruurta guriga joogta marka baasta yar caruurta insha Allah baan ku soo tuuraya hadii Ilaahay raali ka noqdo oo aad runtii aad uga heli doontaan aadna u fudud meesha waxay ugu karkaraysaa biyihii baastada waa baastada aadka u fiinada ah aadka u dhuudhuuban gebigeeda dhanna waxay kartaaba 3 minute baa la karinayaa waa 3 minute baa la karinayaa baastada inta badan waxaan ka iibsadaa dukaamada Soomaalida aan ka iibsadaa haddaan rabana dukaamada Talyaaniga ka soo gataa haddaan aad iyada u jaban helo rabo laakiin shidaalka gaariga kaaga baxay waqtiga ka badan Soomaalida ka gataa baastadan waxay gebigeeda dhanba 3 minute kaas ay kartaa waa lambarka ugu yar 21 waa kaasa 21 hadda idin tusayo waa lambarka ugu yar mid ka sii dhuudhuubani ma jirto marka taasan ayaan jeclaystana maanta ciyaalka u kariyo markan ka soo adeeganayo dukaanka dhowr kala nooc oo size kala waaweyn baan isku darsadaa laakiin hadda tanaan karnay malqacadaas waa fargeetada baastada lagu kariyo laana malqacadaha kale hadii la dhexgelin ka gogoysaa dhici karta fargeetada caadiga inaad ku gubataaba dhici karta taasaan ku sameeyaa digsigana waa kaasa digsiga saroo nooca xoqoma marka malqacada qoriga baan ku sameeyaa suugada waxaan ka sameeyaa intan aad hadda u jeedaan chickenka waad aragtaan chickenka hadda waxaan tusayaa anigoo baruurtii ka soo jarjaray oo isagoo maaragtay faadkii aan ka jaray insha Allah aan tusi doono iyo sida insha Allah u sameeyo waa sida caadiga ee gabadh wariba gurigeeda uga samaysato oo ay u karsato laakiin xoogaa waxaan siri suugadii Soomaaliya ha u ekaato wax xasuusataan dadkeena Soomaaliya ku soo karay suugada hayl iyo qorofal baa lagu dari jiray suugada sida khatarta loo karinayo maasha Allah tabaarakallah kibaan ku daraya baastada waatana waan miiray walaalayaal oo baastada biyo dad baa arkay baastada biyo ku dhaqa baastada biyo lagu dhaqa biyaha lagu kariyo kaliya lagu miiro digsiga saliid yar baan ugu sii shubay digsigeedii baan ku celiyay hadda waxaan soo gaarnay chickenkii baruurtii baan ka soo jarjaray chickenkii basashaan isla shiilaya waxaad heli kartaa inaad chickenka kaliya shiishid marka hore oo inaad basasha kaliya shiishid laakiin waa wax wanaagsan basashii iyo chickenkii baan isla shiilay basashana xabad aad u weyn baan ku sameeyay hadda yar taayna labaan ka dhigaa dhinacana waa kaasa baruurta aan ka jaray waa kaasa halka waxaan u dhigay baradhadii oo aan diirkeeda ku samaystay laana hadaan baradhada markaa wax ku samaysanayn baradhada diirkeeda ma ka jaro marka kaamirada wax yar taba martay chickenkii wali waa kaasa halka u yaala basashii waa taasa basasha cas yaanyo kaaroto iyo baradhadii oo galkeedii wadata hadaan galka marsanaynin oo aan markaa qorsho u sameeynin waa ku kariyaa cuntada toontii baa dhinaca igu jarjaran dhinaca yar caaga yar waxa igu jirta bahashi kamsara igu jirta xaggan waxa yaala tamaantada shiidan raqay baa ii yaala vegetable oil baan ku sameynayaa taasa dhinacaas iyadana ii taala markaas taasaan cuntada ku kariyaa because olive oilka waxa la dhahaa dabka gasho cudurka xun Ilaahay naga haya bay dedejisaa bay ka qayb qaadataa dhalashadiisa markaas sidaa daraadeed kuma kariyo korkaan uga darsanaa maasha Allah khudaartii waa taasa satal way haysataa digsigeeni aan saliidii ku sii shubayna waa kana maasha Allah tabaarakallah gabadh yahay waa taqaanaade anigu gurigaaga ku sheegay ma gabdhaha Soomaaliyeed inay dhexdu wada xiran tahay waan ogahay shaki iiga gama jiro in gabadh Soomaaliyeed cunto karin taqaano hadana inaan idin la washar gareeyo waa iska wax wanaagsan walow baan jeclaan aadna kiinay la wadaagtaan dhinaci kale xawaajadii waad arkaysan basbaaski iyo xawaaj burburka iyo cusbada bas ay ugu diyaarsanayd maanta iyo haylka Soomaaliya raba cuntada in suugada Soomaaliya ii dhadhanto wixii marka basashii hilibkiis la soo shiilay yaanyadan ku xijiyay baradhadan ku xijiyay kaaroodkan ku xijiyay toontiya kamsaradan ku daray xawaajadii baan ku daray cusbadii baan ku daray dawakaasa satal maasha Allah weelkiina waa kaasoo empty ah oo aan ku sameeyay xitaa galaaskan biyaha ku cabiyaan oo biyihii ka laastay waa kaasa
ما شاء الله تبارك الله استراشدي بان إيد ديارسنين تيشو جاسان مربى مارتي إن يركب جوست جمعها كوسمي سنية أو دكسو كقب سنية فروت كمرة بهالكا حنو صار دقا عرور تفروت كمال أركيان ودقا حتى دقا نفط هذا ميلا دركي سيد مارتي فروت كدك تيلا سبحانه وتعالى هاينا وضسيو إنتان هاي السنة الله سين تاستنا الله وسياديو هاو بركايو سوق دي واتنا يضو ديارة ما شاء الله تبارك الله إن بعادي ما هبان كوري عندنا عكلا وحيقول ديارسنا سجنا كاميرا ذكر doontaan saladkii maadaama ay holiday tahay caruurta aad loogu roonaado saladka waxaan ku jaraya xabad orange jeex basal xabad yaaya kaaroto iyo qare lindanaanta laba xabo ukun oo aan soo karkariyay intaasaan saladka caruurta jag ugu siinaya laana waa holiday caruurtu waxay u baahan tahay in aad loo ilaaliyo aad wax loo siiyo inta ay iskuulkeena gurigeena joogaan in laga faa'iideysto anaga reer Australia waxaan galnay 6 weeks oo holiday waana ka noogu badan waa bil iyo badh intaasaan haysanaa holiday sanadka dharka noogu badan inta kale waa laba week marka bishaaya bartaas caruurta guriga noo fadhida bishaaya barka laga wada faa'iideysto caruurta maaragtay ha loo sameeyo schedule iyo meel maaragtay qorshaha loo sameeyo insha Allah si ay hadhowto caruuraha markay iskuulada ugu noqdaan ula jaan qaadaan saxaabtood iyo meeshay soo mareenba insha Allah bidmilaahi kariim si gooni aan uga soo hadli doona hadda intaas aan idinkaga tagaya insha Allah Allah idin wada barakeeyo videoga like saara commentiga ii dhaafa quruxda badan maxay ahayd hooyo sheerta asxaabta kale oo sii gudbiya Allah idin wada barakeeyo walaalahayga waa idin ka mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad ila socotaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.